السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada magacayga waa Cabdiraxmaan Ibrahim. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago cutubka ugu horeeyo buugga Discover Canada Study Guide ee loogu talagalay in lagu diyaar garoobo imtixaanka Canadian Citizenship-ka. cutubkan koowaad wuxuu ka hadlayaa xuquuqda iyo mas'uuliyaadka uu leeyahay ama lagu leeyahay qofka muwaadinka Canadianka ah. cutubkii haddaan gudaha u sii galno طبعا Canadian citizen have rights and responsibilities. qofka Canadianka ah wuxuu leeyahay xuquuq iyo maaragtay mas'uuliyaad ayaa saaran. xuquuqdaas iyo mas'uuliyaadkaas waxay ka yimaadeen taariikhda iyo sidoo kale waxaa damaanad qaado ama damaanad qaadayo sharciga Canada. markii lagu leeyahay these come to us from our history, markii lagu leeyahay Canada sharcigeeda waxaa jiro waxa maaragtay sharci ay isticmaasho oo ah sharci aad iyo aad u daaweyn oo kamid ah sharciyada ugu daada weyn adduunka oo maaragtay laga soo qaatay muxuu ahaa English common law iyo wixii la mid ah. marka su'aasha marka meesha taala waxay tahay ilaha muxuu ahaa sharciga Canada maxay kala yihiin. sharciga Canada ila badan ayuu leeyahay, laakiin waxaa kamid ah laws passed by the parliament. sharciyada ay meel mariyeen baarlamaanka. baarlamaanku wuxuu noqon karaa kan maaragtay House of Commons-ga federaalka ama kuwa wuxuu noqon karaa oo gobolada ayuu noqon karaa. so kaas wuxuu kamid yahay ilaha sharciga mid kamid ah waaye. kan labaadna waa English common law iyo the civil codes of France and the unwritten constitution that we inherited from Great Britain. marka sharciga Canada sourceskiisa intaas ayuu kala yahay. laws passed by the parliament, English common law, the civil codes of France and the unwritten constitution that we inherited from Great Britain. maadaama maxaan ku yiraahdaa aan horeyba usoo sheegnay in maaragtay xuquuqdaas iyo maaragtay mas'uuliyaadkaas qaarkood ay ka imaanayaan sharciyo macnaha taariikh hore. waxyaabaha taariikhda hore waxaa kamid ah waxaa jiro maxaan ku yiraahdaa xeer la yiraahdo Magna Carta ama loo yaqaano the Great Charter of Freedom loo yaqaano. waxaa lagu saxiixay Ingiriiska 1215 ayaa lagu saxiixay. sharcigan wuxuu kamid yahay sharciyada aadka u daaweyn wuxuu ama xeerkan wuxuu maaragtay uu jiraa sharcigan in ka badan 800 oo sano ayuu jiraa. sharcigan waxyaabaha uu maaragtay qofka xuriyadaha u siinayo waxaa kamid ah freedom of conscience and religion. qofka in uu xor u yahay damiirkiisa iyo diintiisa intaba. sidoo kale freedom of association iyo qofka inuu xor u yahay in uu ku biiro ama uu maaragtay dhisto sameysto urur inuu xor u yahay. sidoo kale freedom of peaceful assembly. sidoo kale qofka wuxuu maaragtay xor u yahay in uu banaan baxo, laakiin banaanbaxaas waxaa laga rabaa inuu noqdo banaanbax peaceful ah oo nabdoon. xor ayuu yahay qofka Canadianka. freedom of thought, belief, opinion and expression including freedom of speech and of the press. sidoo kale sharciga Canada qofka Canadianka wuxuu xaq u siinayaa qofka maaragtay fikirkiisa waxa uu aaminsan yahay caqiidadiisa inuu maaragtay uu cabiro ra'yigiisa. sidoo kale qofka inuu wuxuu doono uu ku hadli karo haddii طبعا aysan ahayn wax sharciga ka baxsan. iyo freedom of the press iyo maxaan ku yiraahdaa media sidoo kale in ayagana xuriyad ay leeyihiin. sharci waxaa jira la yiraahdo habeas corpus. habeas corpus wuxuu ka yimid English common law ayaa laga soo qaatay sharcigaas. sharcigaasna wuxuu xaq u siinayaa qofka Canadianka ah the right to challenge unlawful detention. unlawful detention kana xooga saarno wuxuu xaq u siinayaa qofka in uusan u hoggaansamin sharci in uusan u hoggaansamin xanibaad ama qofka in maaragtay la xiro
unlawfully si sharci darro ah, laakiin si lawful ah qofka haddii maaragtay sharcigii haddii la raaco dabcan inuu hoggaansamo ku qasban yahay. laakiin habeas corpus wuxuu xaq u siinayaa the right to challenge unlawful detention. qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu ka hor yimaado ama su-aalo ka keeno xiritaanka ama xanibaada aanan sharciga ahayn. marka ereyga maaragtay muhiimka halkan waa unlawful. haddii aan horay usii gudubno weli anagoo ku jirno rights and responsibilitieska sharciga Canada, marka maadaama aan ka hadalnay ama dastuurka Canada, the Constitution of Canada was amended in 1982. dastuurka Canada waxaa maaragtay amendment lagu sameeyey ama maaragtay isbedel lagu sameeyey ayadoo wax lagu soo kordhinayo 1982. sababta loo sameeyay waxay ahayd to entrench the Canadian Charter of Rights and Freedoms, si dhidibada loogu aaso ama asaas loogu sameeyo xeerkan loo yaqaano Canadian Charter of Rights and Freedoms oo qofka siinayo xuquuq iyo xorriyaadka. xeerkanna wuxuu ku bilowdaa erayadan: whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law. sharcigan wuxuu ku bilaabanayaa ama xeerkan erayadan ama oraahdan waxay leedahay sharciga Canada ama constitutionka Canada, dastuurka Canada waxa asaas u ah mabaadi'daas oo maxaan ku irahdaa recognition ku sameynayso macnaha oo tixgelinaysa the supremacy of God and the rule of law. sharciyadaas waxay maaragtay ama mabaadi'daas waxay tixgelinayaan the supremacy of God, sareynta ilaah, and the rule of law, iyo sharciga in lagu tixgeliyo. marka labadaas principle ayaa ugu muhiimsan dastuurka. xeerkan sidoo kale wuxuu isku dayayaa in uu soo koobo fundamental freedoms, yani xorriyada oo asaasi ah oo daruuri ah. xorriyadahaas isagoo maaragtay soo koobaya haddana wuxuu sidoo kale uu kusoo daray meesha muxuu ahaa xuquuqyo dheeri ah ayuu maaragtay xeerkan soo kordhiyey. waxaa ka mid ah marka xuquuqdaas uu soo kordhiyey xeerkan xuquuqyada soo socda. mobility rights waxaa loola jeedaa macnaha waxaa af carabiga lagu yiraahdo xurriyata tanaqul, qofka inuu macnaha uu socsoco guurguuri karo oo maaragtay hal meel uu ku qasbanayn inuu joogo. taasoo micnaheedu ay tahay Canadians can live and work everywhere they choose in Canada, enter and leave the country freely and apply for a passport. qofka Canadianka wuxuu xaq u leeyahay inuu ku noolaado, ka shaqeeyo meeshii uu doono Canada, uu soo gala Canada, kana baxo wadanka si xornimo ah. sidoo kale in uu maaragtay uu dalbado passport. marka mobility right taasaa loola jeedaa. tan labaad, Aboriginal people's rights. dadka aboriginalka ah ee wadankan looga yimid xuquuqdooda waxaa damaanad qaaday xeerkan charterkan hadda aan kasoo hadalnay oo ah Canadian Charter of Rights and Freedoms. wuxuu damaanad qaaday in maxaan ku irahdaa heshiisyadii lala soo galay dadka aboriginalka ah si negative ama si xun in ma aragtay saameyn aysan usoo gaarin. taas marka waxaa waaye the rights guaranteed in the charter will not adversely affect any treaty or other rights or freedoms of Aboriginal peoples. marka taas waxaa loola jeedaa xuquuqdan uu hadda maaragtay xeerkan siinaya ka sokow xuquuqi kale iyo heshiisyo kale waxaa jira lala soo galay dadka aboriginalka ah. xuquuqyadaas lala soo galayna waxaba yaraatee saameyna oo kuma yeelanayso. xuquuqdan hadda ay helan waa mid dheeri ah. official language rights and minority language education rights. micnaha luuqadaha rasmiga ah ee wadankan looga hadlo iyo luuqadaha maxaan ku irahdaa oo yani dadka wadankan looga tiro badan yahay ay ku hadlaan. faransiiska iyo ingiriiska labadoodaba
waxay leeyihiin equal status in parliament and throughout the government. labadan luuqad, luuqadda faransiiska iyo luuqadda englishka, labadoodaba way siman yihiin markii baarlamanka iyo guud ahaan xukuumadda ama maxaan ku irahdaa xukuumadda federaalka markii la joogo. marka saas daraadeed waxaad arkaysaa serviceska Canada oo dhan inay labadaas luuqad ay ku baxaan, oo qofku xaq u leeyahay inuu serviceka ku helo labadaas luuqad midii uu doono. sidoo kale dadka minority-ga ah ama dadka laga tirada badan yahay luuqadahooda way adeegsadaan wayna ku hadlaan. multiculturalism waxaa waaye dhaqamada badan ee kala duwan ee Canada ka jira. taas marka wuxuu ku leeyahay a fundamental characteristic of the Canadian heritage and identity. multiculturalismka Canada ka jiro wuxuu Canada u yahay aasaas lagu aqoonsado hidaha iyo muxuu aqoonsiga Canada. yani waxay kamid tahay muxuu ahaa يعني صفات كندا Canadian characteristic يعني صفات كندا lagu yaqaan ayay kamid tahay inay tahay wadan multicultural ah. marka maadaama multiculturalismka uu yahay sifo asaasi ah Canadianka lagu yaqaano, dadka Canadianka ah waxay maaragtay u dabaaldegaan يعني dadka kale oo ay wada shaqeeyaan oo ay wada nool yihiin. sidoo kale waxay u dabaaldegaan wax loo yaqaano pluralism and harmony, yani wada jirka iyo wada noolaanshaha waa ay u dabaaldegaan. ma ahan macnaha wax caqabad ku ah waxa waaye wax maaragtay Canadianka ay ku faanaan ayay ka mid tahay. okay, marka maadaama aan soo sheegnay haday in maaragtay amendment la sameeyay ama dastuurka maaragtay bedel lagu sameeyay, amendmentigaas waxaa ku dhawaaqay Queen Elizabeth II ayaa ku dhawaaqday iyadoo joogta Ottawa 1982. okay, hadda marka waxaan ka hadlaynaa maadaama aan horay uga soo hadalnay dastuurkan iyo waxyaabihii uu soo maray iyo aan ka soo hadalnay ilaha dastuurka maaragtay asalkiisa meesha uu ka yimid, haddana aan ka soo hadalnay xuquuqda qofka Canadianka uu leeyahay oo Canadian Charter of Rights and Freedoms uu siinayo. waxaan ka soo hadalnay sida kale Magna Carta. hadda waxaan ka hadlaynaa Canada qofka Canadianka ah طبعا xuquuq kali ma lahan, wuxuu leeyahay xuquuq iyo mas'uuliyaad. mas'uuliyaadkaas waxaa ka mid ah kow, obeying the law, qofka inuu sharciga uu u hoggaansamo waa number 1. one of Canada's founding principles is the rule of law. waxyaabaha maaragtay mabaadi'da maaragtay oo asaaska u ah muxuu ahaa sharciga Canada waxaa ugu hore the rule of law, sharciga in maaragtay loo hoggaansamo. sidoo kale individuals and governments are regulated by laws and not by arbitrary actions. dadka ashqaasta ah iyo dowladda labadaba waxaa haga sharci, ma hago maxaan ku irahdaa afcaal ama maaragtay falal aan loo meel degin. taas micnaheedu waxay tahay no one or group is above the law, cidna sharciga kama sareyso, qof walba wuxuu ku qasban inuu sharciga raaco. tan labaad, taking responsibility for oneself and one's family, qofka inuu maaragtay mas'uuliyad qaato, mas'uuliyadiisa asiga naftiisa iyo familkiisaba. sidee buu u qaadan karaa? waa in maaragtay getting job, qofku waa inuu shaqo helaa, uu shaqo raadsadaa, uu shaqaystaa, reerkiisii uu daryeelaa. sidoo kale in uu si fiican qofka uu u dadaalo, uu u shaqeeyo, dabcan asoo eegaya qof walba iyo maaragtay awoodiisa jireed iyo awoodiisa maskaxeed dabcan ay ku xiran tahay. arrimahaasna qofka inuu shaqeysto waxay ka mid tahay an important Canadian value. waa micnaha waxay ka mid tahay waxyaabaha qiyamka oo Canadianka lagu yaqaano. Canadianka waa dad very hard working ah oo aad u shaqeeyo. qofka inuu shaqeysto sidoo kale waxay qayb ka qaadanaysaa personal dignity, qofka sharaftiisa inuu ilaashado, self-respect and Canada's prosperity. sidoo kale wuxuu ka qayb qaadan karaa
maxaan ku irahdaa in maaragtay self respect uu helo oo maaragtay ixtiraam uu helo iyo in maxaan ku irahdaa uu qayb ka qaato barwaaqa sooranka wadanka yani dhaqaalaha wadanka inuu qayb ka qaato. 3 serving on a jury qofka in maaragtay uu ka mid noqdo xeer beegta haddii micnaha ay dowladda ay ka codsato. Qofka haddii marka ay dowladda ay tiraahdo waxaa tahay juror ama dadka maaragtay oo citizenska ah laga raba in ay qayb ka noqdaan maxaan ku irahdaa juryga ama xeer beegta, arrinkaas waxa waaye waa legal requirement. qofkaas si sharci ah ayaa looga rabaa, wax optional ah ma ahan. Task sokow, serving on a jury is a privilege that makes the justice system work as it depends on impartial juries made up of citizens. Sidoo kale qofka in maaragtay juror uu noqdo oo uu ka mid noqdo xeer beegta waxay u tahay sharaf ayay u tahay. Sidoo kale taas waxay qayb ka qaadataa in sharciga ama maxaan ku irahdaa garsoorka Canada oo uu u shaqeeyo si maaragtay ku tiirsan xeer beeg aanan lahayn oo maaragtay ka kooban dad citizens ah. taas micnaheedu waxay tahay sharcigu wuxuu ilaalinayaa waxa la yiraahdo impartiality, yani in aysan jirin oo maaragtay dhinacaanan loo janjeersan. saas daraadeed dad oo maaragtay muwaadiniin ah oo kala duwan oo aan aqoonin oo is aqoonin oo meelo kala duwan ka kala yimid ayaa la isu keenayaa. weli waxaan ku guda jirnaa mas'uuliyaadkii qofka Canadianka. waxaa sidoo kale ka mid ah voting in elections, qofka inuu codeeyo. طبعا codeyntu waa mas'uuliyad waana xaq sidoo kale. okay, marka qofku waxaa laga rabaa inuu maaragtay xaqaas uu sharciga siinayo inuu ka faa'iideysto oo uu codeeyo federal, provincial and territorial and local elections, inuu ku codeeyo maxaan ku irahdaa doorashada maaragtay federaalka, midda gobolka iyo midda maxaan ku irahdaa deegaanka intaba inuu ka qayb qaato. helping others in the community, inuu qofka sidoo kale uu ka qayb qaato inuu caawiyo bulshada uu ku dhex nool yahay. Millions of volunteers freely donate their time to help others without pay. dad badan oo malaayiin ah ayaa maaragtay si mutatawwacnimo ah waqtigooda ugu huro ayagoo haba yaraatee wax maaragtay lacag aanan la siinaynin. marka qofka inuu maaragtay shaqeeyo oo uu caawiyo bulshada uu ku dhex nool yahay waxaa loo yaqaanaa volunteerism, yani inuu qofka uu volunteer gareeyo. volunteerka markuu qofka uu volunteer gareynayo wuxuu sameyn karaa helping people in need, dadka caawinaad u baahan inuu caawiyo, ama inuu iskuulka caruurtiisa ay wax ka bartaan inuu maaragtay caawiyo uu ka volunteer gareeyo, ama food bankiga inuu ka volunteer gareeyo, ama in uu maaragtay hay-adaha samafalka charity-ga ah inuu sidoo kale uu caawiyo. sidoo kale wuxuu sameyn karaa in uu dhiirigeliyo dadka soo galootiga ah ee wadanka ku cusub si ay maaragtay mujtamaca ay uga mid noqdaan inuu caawiyo. marka intaas oo dhan waa qaabab badan oo qofku uu volunteer gareyn karo. haddana volunteeringkii faa'iidada uu leeyahay waxaa ka mid ah waa an excellent way to gain useful skills, waa qaab aad u wanaagsan oo qofka uu xirfado uu ku kasban karo and develop friends and contacts, una maaragtay sidoo kale uu maaragtay yeelan karo asxaab iyo maxaan ku irahdaa xiriir iyo inuu yeesho. marka volunteeringka ma aha kaliya inaad maaragtay dad un caawinaysa, adna faa'iidadaas ayaa kuugu sugan. mas'uuliyadda ugu dambeysa marka waxaa protecting and enjoying our heritage and environment, yani qofka Canadianka ah in uu maaragtay uu ilaaliyo kuna raaxaysto hidaha iyo maxaan ku irahdaa bii'ada Canadianka inuu ku raaxaysto. maxaan ku irahdaa qof kasta oo Canadian ah wuxuu leeyahay door uu ciyaari karo oo uu ka ciyaari karo in laga fogaado
in maaragtay wax la beer dareeyo maaragtay wax wasaqda iyo waxyaabahaas pollutionka maaragtay haday ahaan lahayd midda oo qashin dhul lagu tuuro iyo haday ahaan lahayd geedo la jaro iyo haday ahaan lahayd maxaan ku iraahdaa in maaragtay qofka uu wax maaragtay waxyaabaha uu isticmaalo inuu wadada ku daadiyo ama meel uu ku daadiyo taas oo dhan qofka inuu ka dadaalo ayaa loo baahan yahay si maaragtay loo ilaaliyo muxuu ahaa yani dabeecadda muxuu ahaa wadanka sidoo kale si loo ilaaliyo maxaan ku iraahdaa marka in la yareeyo muxuu ahaa qashinka iyo wasaqeynta hawada iyo wixii lamida iyo sidoo kale in la ilaaliyo muxuu ahaa dhaqanka iyo architectural heritage iyo maxaan ku iraahdaa dhismaha hidaha in la ilaaliyo intaasoo dhan waxaa loo ilaalinayaa for future generations yani jiilka soo koraayo in loo ilaaliyo oo maaragtay ayagana ay uga faa'iideystaan ay ogaadaan taariikhdii wadankan uu lahaa iyo maxaan ku iraahdaa waxyaabihii wadankan uu soo maray kulli in ay ogaadaan ay dhaxlaanna wadan maxaan ku iraahdaa hawadiisu nadiif tahay wadan maaragtay wadooyinkiisa iyo jidadkiisa ay nadiif yihiin marka intaasoo mas-uuliyad ah ayaa saaran qofka Canadian citizenka ah okay hadda waxaan u gudbaynaa qayb kale qaybtan waxay ka hadlaysaa equality and defending Canada طبعا waa laba qayb laakiin waan isku daray qaybna waa halkan qaybtan hore qaybna waa qaybta dambe equality waxaa loola jeedaa sinaansho marka qaybta sinaanshaha hadda aan ka hadalno the equality of women and men yani ragga iyo dumarka sinaanshahooda in Canada men and women are equal under the law markii la eego sharciga Canada ragga iyo dumarka waa ay siman yihiin barbaric cultural practices such as honor killing, female genital mutilation, forced marriage, or other gender-based violence are not tolerated in Canada. dhaqamada maaragtay bahalnimada ah maaragtay ka jiro wadamada qaar oo ay kamid yihiin honor killing waxa loo yaqaano dil sharafeedka waxa loo yaqaano oo macnaha qof loo dilo sababtoo ah muxuu ahaa sumcadii familka ayuu maaragtay meel uga dhacay oo kale in loo dilo waliba gaar ahaan dumarka hadii ay maaragtay ficilada qaar ku dhaqaaqaan iyo genital mutilation iyo dumarka ama gabdhaha in la gudo oo maaragtay gudniin ka fircooniga la gudo ama guud ahaan gudniinba iyo forced marriage in lagu qasbo gabdhaha inay xoog ku guursadaan qof ayaga aynan rabin iyo gender based violence muxuu ahaa xoog sheegasho oo maaragtay ku salaysan jinsiga qofku uu yahay yani qofkan waa dumar maadaama ay daciif tahay waa loo xoog sheegana oo kale arrimahaas oo dhan Canada lagama ogola Those guilty of these crimes are severely punished under Canada's criminal law. Dadkii arrimahaas ay ku cadaadaan oo intaan hadda aan soo sheegnay wax kamida maaragtay ay ku cadaadaan sharciga Canada talaabo ayuu ka qaadayaa talaabo culus ayaa laga qaadayaa yani qofkaas waxa laga yaabaa inuu xabsi u galo in maaragtay yani lagu xukumo maxaan ku iraahdaa dambiyo in lagu xukumo marka aad ayay muhiim u tahay in dhaqamadaas oo kale la iska ilaaliyo marka taas waxay ahayd qaybtii equality-ga oo rag iyo dumarka inay siman yihiin marka sababta arrimahan looga hadlayo waxa waaye badanaa arrimahan waxaa lagula kacaa dumarka marka maadaama dumarka lagula kaco sharciga Canada waa uu maaragtay protect gareeyay muxuu ahaa female-ka ama dumarka guud ahaan defending Canada in la difaaco Canada there is no compulsory military service in Canada ma jiraan wax la yiraahdo adeeg military oo qasab ah Canada qasab ma qofkii inuu military-ga ka mid noqdo hasi ahaatee serving in the regular Canadian force is a noble way to contribute to Canada qofka inuu maaragtay ka mid noqdo ciidanka Canada
waxay ka mid tahay qaab maaragtay sharaf leh oo wanaagsan oo qofku uga qayb qaadan karo muxuu ahaa wadanka inuu gacan ka geysto. sidoo kale waxaa jiro in maxaan ku irahdaa waxaa jiro wax la yiraahdo cadets oo yani dhalinyarada loogu talagalay oo ayagana ay ka qayb qaadan karaan. marka cadetskaas waxa waaye wuxuu ka caawinayaa dhalinyarada in ay bartaan disciplineka, mas'uuliyadda, inay maaragtay iyo sidoo kale inay kasbadaan xirfado. marka qofka hadduu rabo in maaragtay caruurtiisa ay uga qayb qaataan qaybtan cadetka uu geyn karaa maaragtay oo maxaan ku irahdaa oo ciidanka uu geyn karaa si ay maaragtay usoo kasbadaan skillskaas halkaas aan kusoo sheegnay. sidoo kale qofka Canadianka wuxuu maaragtay uu caawin karaa ama ka shaqeyn karaa Coast Guard inuu maaragtay kuwa xeebaha ilaaliyo inuu ka mid noqdo, emergency services in the community muxuu ahaa kuwa adeega degdega ah bulshada dhexdeeda maaragtay ka shaqeeyaan inuu ka mid noqdo, sida police force-ga inuu ka mid noqdo ama fire department muxuu ahaa qaybta debdemiska inuu ka mid noqdo. marka qofka intaasoo dhan uu sameyn karaa, laakiin qasab ma ahan. saan hore usoo sheegnay, there is no compulsory military service. wadamo badanaa jiro oo qofka haddii uusan military soo marin waxyaabo badan aynu u suurageleynin oo qasab ay tahay, laakiin Canada ka mid maaha wadamadaas. By helping to protect your community, you follow the footsteps of Canadians before you who made sacrifices in the service of our country. qofka marka in uu maaragtay caawiyo bulshada uu ku dhex nool yahay, taas macnaha waxay ka dhigan tahay in uu maaragtay raacayo dhabihii ay mareen dadkii hore ee Canadianka ahaa oo wadankan maaragtay u soo horay muxuu ahaa waqtigooda iyo dhiigooda iyo xoogooda u soo horay si ay wadankan ay maaragtay ay u caawiyaan ama qayb uga qaataan. marka cutubkan marka intaas ayuu ku egyahay. marka guud ahaan maxaan ku irahdaa waxa ugu muhiimsan inaan ognahay Canada sharcigeeda iyo sourceskiisa, sidoo kale in maaragtay aan ognahay qofka Canadianka xuquuqda uu leeyahay oo uu siinayo Canadian Charter of Rights and Freedoms iyo xurriyaadka uu siinayo Magna Carta oo ah maxaan ku irahdaa xeer aad qadiim u ah. sidoo kale waxaan soo baranay qofka Canadianka mas'uuliyaadka saaran. waxaan sidoo kale ka hadalnay sinaanshaha ragga iyo dumarka iyo maaragtay falalka oo barbeeriga ah oo maaragtay wuxuushnimada ah oo aan wadankan laga ogoleen oo ay kamid yihiin intaan hadda aan meesha kusoo xusnay oo dumarka gaar ahaan maxaan ku irahdaa lagu target gareysto. sidoo kale waxaan sheegnay qofka Canadianka ah inuu maaragtay ka mid noqon karo Canadian Forceska, ciidanka Canadianka haddii ahaan lahayn kuwa badda cirka meeshuu doono, laakiin qasab ma ahan qofka inuu maaragtay adeeg military inuu guto, qasab ma ahan, laakiin waa qayb maaragtay ka mid ah qaybaha ugu wanaagsan oo qofka uu maxaan ku irahdaa wadankan dib maaragtay uga qayb qaadan kara yani horumarkiisa iyo difaaciisa. marka halkaas ayaan ku joojinaynaa maanta. waa inoo mar kale iyo cutubka labaad insha Allah. Assalaamu calaykum.